وأنعم منك بالقرب. كون جني هذه الأمة فليتعلم علوم العربية نينك دون يا أما ودمع كجيرو إنه نقضى أمدا جنكيغا عربي هبطه فإنه يبصر ما لا يبصرون وحو أركيا وحينا أمدا كلا أركيين سيدا جنكو إنو أركو أينان إنو أركيين سيدا سوكالي ويام بوت المامي نينك نحويله إيه معناها أو كتابك كجرانيو أما معناها واضحة وهايست إنو يهي مرخاتي مدون إنو نكن كلا لفردي أركيين ولعي كفا وأيه من أراد أن يكون جني هذه الأمة فليتعلم علوم العربية وحن خصوصا لبا شيخ ومد الشافعي هي أيا يوم من الأيام ضوض بعد إحنا عدد ضوض تاسي وحي كسا ليسنيد مسألة إمكا لقبك سدي سألة لقد دودي جري وحي هيد في وقت الأئمة مكا قريه وملكي مياه قلان مسا قلان ما كان قريها كان لساني نيالة كلا ملكية مثل ما كلا ملكية إمام الشافعي وحكو دعواني ما كان قريها وين الملكي قلان إمام كان كلا لدعواني وحكو دعواني إنين الملكي قلينين الله بذا الدعوة يسبربر دعيسي شافعي مركي اسم روايين آيات قرآن عن يسوقات وحيد إلهي وحو كتاب كيسا قرآن كاكو يري للذين أخرجوا من ديارهم halka diyaarihin kolkaynu eegayno idaafa ku jirta idaafadana naxwada ka hadasha daaruhoogi kuwii laga saaray ilaahay makaana laga hadlay waa asxaabtii muhaajiriinta ay kolka min diyaarihim idaafadaasi waxay keensanaysaa milkii buu daaruhoogi lama yiraahdeen hadayna daaruhu milki gelinin buu imaam shaafici imaamku la soco kelmad naxwadu ay faa'iideysay ayuu meesha si fiican u daliishay waa idaafa ninka naxwiilaha ah in idaafa ma garanayo haddii imika intaad maxkamadda tagtiin kitaabka aynu isku qabsanno oo tidhaahdid kitaabkiisaan ku haystaa xukunkii adaa dhameeyey cidba cid wax weydiin mayso halkaasa lagu kala tegaya kitaabkiisaba haddaa tidhaa de ilaahay soo ka daartoodii yidhi buu yidhi imaamu shaafici min diyaarihim idaafa soo ka meesha keenay xagga xadiidku imaamu shaafici u leexdo xadiidkii fatxu maka nebigu uu lahaa caqilmiyu daar nooga tegay aanu ka dhaxallo ayuu soo qaatay dhaxalka wixii milki gala ayaa gala buu imaamku yidhi ninkii kale wuxuu yidhi awsaaci iyo culimadii waaweynay sidaa mayna qabinayn inaan la kala lahayn ayay caddayn jireen mar kaste kolkaasuu imaamu shaafici xanaaqayo wuxuu yidhi anta majnuun miyaad waalan tahay buu yidhi niyahow wayaquulu laka qaala allah wa qaala rasuulu llah wataquulu qaala fulaan wa fulaan ilaahiy rasuulkiisiiba sida yidhi baan ku leeyahay adna hebel iyo hebel baad soo qaadanaysaa in maxaasi ka abuy sheekhii kalaa isna markaa xanaaqay intii hore o dhan ma xanaaqin kolkaasuu yidhi aniga laftarkaygu qur'aanka ayaan asal ku leeyahay وحنا دعي بيقول الله وحكوا لي كتاب كيس القرآن كأ سواء العاكف فيه والبادي سواء وحكوا السنن بيقول العاكف نك ماشى كل شيء يسكت الجن والبادي كآفاق ذكرية هوين ككله نك أجنبي جاي ما لا كله كيمي ويكون سمين ينوم كلاله قال نك نروح كنت دعوانية نك مكد الجن أما إن أنت مكد الجني مر الله مرك جوري جاي كبحني قرض أو بحضه haddaad u soo daba marto kaama saari karto waayo kolba ninkii degan kolba ninkii ku jira unbaa iskale kolba ninkii ku jira unbaa iskale buu leeyo lamaba kalale gurigaa aad degan tahay haddii qoyskale uu yidhaa annaguna gurigan way nagu fillaanayaa xaggan kalena alaabta soo dhiganaynaa uma diidi kartid saasuu leeyahay sawaaun alcaakifu fiihi walbaadi imaamu shaafici markaasay masaladii ku adkaatay laftarkiisa wuxuu yidhi xaaji aayaddan aad adeegsanaysaa ضميرك كتير يا كعقلدن حاجة وضميرك ونقنيه فيه هذا فيه يا ضمير ضميرك لا يا كهضلا نحو كهضلا ضميرك كعقلدن بيد حاج وحول ضميرك كعقلدن هي سواء العاكف فيه كلك فيه لليه هي فيه ذي مكان ما هبوي هذا المكان كم دعيسو يسا كل دعيسا مسجد الحرام ما شاء الله كلا لهين عد كسائي أسلمان تهي ومساجد كمسجد الحرام كأ لكن قريه ملكي ويقلان وانا سيدن قريهان كلا عالم كجيرو او كلا هذا لبا ايمان بينو halka ku hayna oo maxay ku dacwoonaya masaa'il nahwa ay ku dacwoonayaan ku kala baxayaan waa masaa'il nahwa haday damiir tahay iyo haday idaafa tahay iyo waa masaa'il nahwa lagu dacwoonaya waxa jira cilmiga nahwihi waa midida weeyaan ama tawxiidiyo kale weeyaan hadii neefka qalal lagu yiraahdo ka waranado bila midiya aan ku sameeyay
علمي وناف قاعد إلى القاقو فرديه قال لك الحوق بدني سيدو قلني ملكات كعني بعض ملايين هداد بلاد أدوم بدية قلل من جهل قال قارنتي وحيقا نصيحة رجي دمر بدتك الدنيا إني علمي الشرعي أي وقت كبرتان إني عربي كوريسيان عربي قاسي كما كوبنا نحوه علم بسيط علم اللسان باليه كانوا صحا لكن وإن النحوه علم اللسان كي عبرتان صرفي علم اللسان مع علم المفردات كي عبرتان بلاغذي علم المعاني كي هل كان نحو لفظك إنها تقل دنتو كابد بادين أيوه بلاغذ إنها معناها تقل دنتو كان إلى الإنسان علومتي كلا علوم الحكم كي علوم المنطق وحي كلا دنو حكا لغا يابين كابد باديانا ما يكا إلى اليار فكرتي سيحونين أبانو فكرين وهي عداد سيحونو فكرته فكر كاس نتيجة وكينسين ينوح غلط بين قنصة قولك علومتي اللغة العربية أي كوبسين جبتي إنه ننكو كده دالو إنه هرت إيذا فهمه أيام مهم مناسب نعم يقتلانك علوم العربية مركز لسواق هذا هرت فنتي قيمه يقدرك أيلا بحي واحد بضنك الشيء كريمين لو تعلم طير ما في النحو من شرف حنت إليه وأنت بالمناظير هذي شمبرتو أي أكتهي بيلي نحو ذا قيمها يقدرك كتشرة شمبرتو هذي أكتهي قيمها نحو ذا أيلا بحي ويقصوا تاهيل أصوات كانوا تدون أي أقصوا تاهيل شمبرون ويبرن لهاي واي وامحي هذا الكمحاء كان سريسية وذكتها إن أفتهنا أما فصاحة بضن هدوها الله إن يدكتها بسيفي عنونا عن سنسي هذا الكيسة لأن هذا الباب قولين هدوها ضلنا اكتها ويديدي سيني لغيستو إلا إن قصل يا شيخك لو لغيستو موياني وحكفة إيدي سو لغيستو ميسو محا سبابي ننكن سيدات قرانا عرب كصحانا عرب كيسو وسحية هي نفطة شعلني لغيستو ننكن عرب كيسو خلطك وككوبية هي اسكاد عدا عينا maxaad ka dhageysanaysaa ibad dhacay isagii baa ka caaqufaya takale waxay culimadu ku tilmaamaan ninka kiyo bilaa naxwa hadlaya inuu yahay sawdkiisu inuuna waxba badaamin sawdka shimbiraha waliga shimbir dhageysanayso dhanaysa waxay ku sheekaysanayso shimbiru ma fahmi kartaa waxay ku sheekaysanayaan hadalkiisii noocaas oo kale uu noqonaya waxa ma dhaamay kolka hadalka waxa kala istaqriisiya kolba qadarka ruuxani oo luqadiisii u leeyahay qadarka uu aqoonta luqada u leeyahay ayaa hadalkan kala sarreysiina iyo qiimo u kala yeelay waxay yiraahdeen culimadu al kalaamu bila nahwi ka ta'aamin bila milhi kalaamkan aad ku hadlaysid oo bila nahwihi waa ta'aamkan waa cuntadan aad cunaysid oo milix la'aan milixda wax ka marma waa yiriya milixda wax Allah wax ka marma sidii loo ognahay oo wax iska kooban milixdu wax bay wanaajisaa kolka nahwuhuna kalaamkeenan halkay milixdu cuntada u taagan tahay ayuu u taagan yahay wax ka marmaya waa kooban aad u yiriya hadaynu ka soo koobanno Umar bin al-Khattab baad garanaysin aqwaashi oo nahwaha ku lahaa taabiciintii baad garanaysin aqwaashi ay nahwaha ku lahaayeen aqwaal aad u cadcad runtii oo iloobi karaynin ayay nimankaas nahwaha ku lahaayeen iyo cilmigiisa sababtii nahwaha loo bilaabay hadaynu eegno nahwu saddex xaaladood soo maray baynu oran karnaa marxalo waxa la oran jiray marxalatu al-mushafaha dabnuhu baa lagu kala qaadi jiray wala yaqaani laakiin dabnuhu baa lagu kala qaadi jiray ama marxalatu salaaqa baynu ku tilmaami karnaa marxalatu salaaqa waa marxalo an ficiliya faa'iliyo mafcuul bihi toona la aqooni laakiin lagu hadli jiray faa'ilku isagoo faa'ilnimadiisiiya mafcuul bihi buna isagoo mafcuul bihi nimadiisiiya lagu hadli jiray isagoo mid kastaaba shuruudiisii dhamaystirtay macnihiisii iyo hay'adkiisina wata ayaa lagu hadli jiray waa marxaladii carabtii fasaaxada ah intii jirtay weeyaan nahwu kiyo i'raaban min kastaaba kiyo i'raaban kalaamkiisii oo i'raabkii saxda ahaa uu ku hadlaya sida darteed waa kii ninkii carabiga ahaa oran jiray walastu binahwiyyin yaluku lisanahu walakin saliidiyun aqulu fa u'ribu ma ihibu li nahwiyi carabkiisa raamsada ama carabkiisa cuna ninka nahwilihi hadii ilaahay nahwada ku baro waxa laga yaabaa laba qadiyadood labadaba inuu ku dhaca laga yaabaa kibir inuu ku dhaca laga yaabaa waxa kale oo laga yaabaa intuu fasaaxo isleeyahay ama hadalkan intuu ku hadal isleeyahay inuu carabkiisa qaniina laga yaabaa ninkaas wuxuu tilmaamayaa walastu binahwiyyin anu nahwile ma ihi yaluku lisanahu carabkiisa raamsada walakin saliiqi waban u dhashay buu luqada
أقول وأنا إسكت هذا يا أخو عرب هذا الكي جوبي عربية أنا كنا نحوية مبتدئة خبر تونا ما برنينا إلهي باللغة إيدلية كده من الله مركان الله مبتدئة وإعرابية خبر كي وإعرابا بنكو هذا ليا لما حوك برن بقى محدود بهيه كل هذا يسوي سوتش دي بعضه هذا الكيس إعرابي وتوسيني هاي وهير صريح نحوه مرحلة داسو صامر ومرحلة أن فاعلك مبتدئة خبر كي وحن أن العقول لكن إنك هذا بحضرك يوصحان هذا الكوكو هذا الشيء مرحلة داسي وحيا هاي مرحلة دي عربتي فصحة هاي أما بلغة هاي دي يشوفين حتى واحد كجريد مراحشي دبيعدي حركة تونا ينشري إنه جيم كي يخاله محين كوكا لقرنا لبضل دبيع سوماها عربت واحد سومر وقت دبيع وين حروف طلعي صادية بعضية إنه واحد دبيع على كوكا قرتها بقى ينشري لكن هذا لميت كستابك المد وكجرو كفي أجان هي كلمة نقاء أم بيشيء ينقاء في لوجو هذي إن بقى لوجو هذي إنت لوجو هذي كل بكلمة دي كجري أم بالي إيجي كل كا لمن كيف فصحة ها هذا الكوجو ده اللي بورص مع وقت جوجي نحوه نعاسه وحكدم بيجي وقت جي نبي الله محمد لصادر عليه الصلاة والسلام إسلام كوفافي عالم كورن وذجاري أمضى إذل أن عربها هنا أفقى عرب تقاطين مدينتي أيزو قاعدة يدو عربية وقت جاوا حلقة بقي ووقت جيني كبري كي ماذا قلبه وسير كنو قنشري فيه لقو حيريني ياتها إياكو يقانا تونا لكن لقو حيري أقوانتها ذو محي الدون كماشا أغشي شيء صح واحد تاريخ ذو يسامت وانا الله حيا فقي كيميد وماشا أغو قلبه ذي صح ما ملكا قبطي ونلورنين حاجات كتيميدية ياكو يقانا تونا علمي سمرك الله أركو أي أمدو كالسوني بحين يسا تلمام يسارين ولنكن أرموه بواناجين كرو وحبضا نوكا قبنا وقت جاء أمدو أي فافتي قبيلك أبابا أي سيدي نقرانا إنه أمضا إذلون عرب أهين أفكي عرب تقاتين أما دينكي وعربي هي يسوقع لي يكو هضلين وقت جاء أي عربي الله بقى وقت جاء أفكي عربي الله بقى waayo dad badan oo afku ku hadli jirin oo jijibinaya oo afkii dilaya ayaa soo baxay oo kolba dhinac kaga joogsanaya inta ku hadlay jiraahdin ama makhrajkii bay dilayaan oo alhamdu bay oranayaan haba aqriyayaan ama xarakadii bay dilayaan oo waxay doonaan bay ku hadlayaan markii nimankaasi ay soo baxeen ayaa sidaad garanaysa tajwiidkii iyo de makharijtii hawaynaya xaraf kasta meesha ka soo baxa tilmaamaya ayaa wax laga qoray naxwihi oo xaraf kasta xarakadiisii cadeynay wax laga qoray xuruuftii iyo dhibicihii ay lahaayeen ku kala duwanaayeen wax laga qoray xarakadii kelmaduhu ay lahaan jireen markaas ummadda si fiican wax loogu bayaaniyay kolkaas alla damacay in qawaacid ummadda loo sameeyo ninkii luqada aan u dhalanin ama ninkii u dhashay sida niminka taagan oo kale laakiin qawaacidkeedii saxda ah aan soo gaarin si luqadii saxda ahayd kolka waxa dhacday isluubka badbaadinta waxa lahaada la yiraahdaa ee luqada lagu badbaadinayo waxa lahaaba la tilmaamaa ninkii Umar ibn al-Khattab la oran jiray radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab maalmaha ka tirsan ayo Umar ibn al-Khattab waxay tilmaamaan Umar ibn al-Khattab maalmaha ka tirsan ama yawm min al-ayyam ayuuni ku soo baxay وعمر نكن وانين أعرابي وفيمية والله وحجرنا يا مجد لكن لغدي بصحية وعد عمر وحن كارثة من قرآن كي بريء ما حلا عمر مركو أرين كيك يعني نبى فرت تاجي ويجي أنا قرآن كمعلم كو أهل يديبه نكن معلم كها قد يدي بفليه إسقى سورة البراء نكن ودقيا أيو آيات القرآن كا سدا أقول إن الله بريء من المشركين ورسوله آيات ورسوله بيعي والله أنكو ضمسنا ورسوله بيعي إسنا وح أقول لك نيجي معلن كها نيجي في البادية ها وح أقول لك ورسوله والله أنكو مكسرين حركة أنت على أجي حددهم يصير قالني أيكو جالسين كتاب قالني ما دوا دري مسا قالني حتى كجالسين مسا وحركة أنت على وما حي آيات وحيا حي إلهي رسول كيسبه marka hada rasuuluhu ilaahay laamka la damiyo macnuhu wuxuu noqonayaa ilaahay iyo rasuulkiisuba mushrikiinta bari bay ka yihiin bayahay markii uu rasuuluhu la yiri laamkii la kasriyay macnaheedu wuxuu isku bedelay ilaahay
mushrikiinta iyo rasuulkiisaba beri buu ka yahay mushrikiinta iyo rasuulkaba ilaahay uu wada nacay saasuu macnihiisu ku bedelay xarakada yare intaa la eg ayaa khaladka intaa la eg keensatay ninkan macallinkiihi qur'aankuunbuu bartaye ma garanayo laakiin luqadii iyo xarakadu isbeddelkay keensanayso ninkan reemiyigiihina luqadii buu garanayaa laakiin ma garanayo qur'aanka kii reemiyiga ahaa kolkuu dhegaystay ina allaha barii'un min almushrikiina ana allaha bay xitaan filaya barii'un min almushrikiina wa rasuulihi kolkuu dhegaystay ayuu kii reemiyiga ahaa adkaysan kari waaye oo wuxuu yidhi idan ana abra'u mima bari allahu min anna beri baan ka ahay buu yidhi maxamed iyo mushrikiintaba waayo ilaahay baa iska beri yeelay ilaahay iska beri yeelay maxaa ii soo dhaweynaya buu yidhi maxamed iyo mushrikiintaba xidhiidhkoogii jaray buu yidhi waa kii reemiyiga ahaa macallinkiisii baa xanaaqay macallinku ilayn ma garanayo waxaanu aqriyayo macnihiise laakiin ninkanaa garanaye uu xanaaqay arrinkii baa suuqa galay isla markiiba cumar ibn alkhadaab oo amiir ah ayuu gaadhay markuu isla markiiba gaadhay cumar ibn alkhadaab ayuu cumar wuxuu sameeyey u yeedhay buu yidhi ninka dembigaa galay jariimada intaa leeg ninka galay ee maxamed baan beri ka ahay yidhi bal u yeedhay buu yidhi cumar ninkii baa loo yeedhay maxaa kugu kalifay baa layidhi inaad hadalkaa ku hadashid taanuu ilaahay qowlkiisu ma ku dhaqmayey buu yidhi camalan biqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa uma ku camal falayey buu yidhi ana allaha barii'un min almushrikiina wa rasuulihi aayaddan baan ku camal falay ceeb kale ma samayn buu yidhi markaasaa la yidhi macallin aayaddu say ahayd macallinkii baa ugu hadlay sidii ninkani macnihii uu dee ninkani ka qaatay uu ugu dhigay ee qaladka ahaa ayuu macallinkii ugu hadlay kolkaasaa dee la yidhi alla ilaah ninkan reemiyigiihi dee khalad ma galina macallinkii baa khaladka iska lahaa cumar wuxuu soo rogay amar odhanaya ninka mucallimka noqonaya gaar ahaan xadiidka iyo qur'aanka macallimka ku noqonaya ee wax ka dhigaya inuu noqdo nin luqada si fiican u yaqaan horta cumar baa kolkaa iska lahaa bidaayada naxwada markaynu sanadkaa eegno sanadka noocaaya markaynu eegno cumar baa iska lahaa bidaayadiisa sidii bay naxwadu ku hirqaaday sidii bay ku bilaaday sidii baa maalinba wax yar loogu darayey maanta halkay taagan tahay inaan kusoo gaadhay waxay tilmaamaan sanadkaa ka mashhuursan baa jira sanadkaa waxay tilmaamaan waxa jiray nin la odhan jiray abilaswad adu'ali ninkaa wakhtigii cumar maahe waa wakhtigii cali kolkaa ninkaasi inan yar buu dhalay kii gurigiisii ku taagan yihiin isagiiyo inantiisii yarayd habeen intuu gu tahay roobku intuu si fiican u da'ay cirku una daruur lahayn xidiguhuna si fiican ay u muuqdaan oo dhas iyo boortoona isiigatoona ayna jirin ee hawadu si fiican u maydhan tahay ee gurigiis ku taagan iyagoo guriga ku taagan ayay inantii yarayd la yaabtay cirka quruxda ilaahay uu abuuray waa yaab tacajub markaasay aabbaheed ku dhaystidhi aabba cirku qurux badana markaasay ku tidhi maa axsana samaa waxay ku tidhi maa axsanu samaa'i bay ku tidhi maa axsanu samaa'i waxay doonaysay inay tidhaa cirku qurux badana inantuna waxay ugu dhawaaqday kelmaddii maa axsanu samaa'i axsanka nuunkay damisay samadana hamsihiisii bay kasrisay waxayna kelmaddii soo boodday maa axsanu samaa'i aabba samada waxa ka quruxda badan balii sheeg markaasuu odaygii ugu jawaabay nujuumaha xidigaha maadan arkayn buu yidhi markaasay inantii fahantay aabbaheed inuuna fahmin waayo iyadu maxay doonaysay cirku qurux badana inay tidhaa oo istifaamba maahayn warkeeguyo tacajub yaabkuu ahaa cirkiiyo qurux badnideeda inantu la yaabanay istifaamna maahay hadalkii ay ku dhawaaqdayna istifaam buu noqday oo ma axsanu samaa'i cirka waxa ka quruxda badan balii sheeg buu noqday hadalkeeda cirka waxa ka quruxda badan balii sheeg markaasuu odaygii jawaabtii bixiyey cirki wixii ka quruxda badnaa markaasay dareentay inuu odaygu istifaam u fahmay tacajubkii iyo yaabkii iyadu ay doonaysayna inuuna u fahmin kolkaasay tidhi aabba sidaa uma jeede tacajub baan doonaya markaasuu ku yidhi yaa bintii iftaxii faakii buu yidhi inantaydiyey bal afkaagan fatxa ku wada sameen oo nuunkii axsan ahaayee damisay ma garanaysaa axsanu bay tidhi soo maahay nuunkii fatxi oo maxay ugu dhawaaq ma axsana samada hamsaheegii ay kasrisay ma garanaysaa isagana fatxi oo maxay ugu dhawaaq maa axsana samaa haddaad doonaysid inaad tacajub ku samaysid labada kelmadoodba waa la fadxiyaa waxaana loogu dhawaaqaa maa axsana samaa samada maxaa ka qurux badan maa akrama caliyan baad odhanaysaa cali maxaa ka sharaf badan maa akrama caliyan
هذا لكن ما أكرم علي تلاحظه علي كشرفت بدل ما ليش بين قنيسة ما أسود إنك استون سويت الله قليل ما كانوا وهي وصف جيجا أي أسود في ماذا ما أشد سواد بكر بعض الكتاب ما أشد سواد بكر الله بكر محكم بدون وياه كلك هذا لكن ما أشد سواد بكر تلاحظه والبكر كم ذو إيش يقوم عنه النقنية سيدي أنتوا عيوت لي ما أحسن سماعي حاصل جو واحد يركل المدة صدح سياط الله قد واقع النون كالله ضميها مسحنا الله كسريه قل لي ما أحسن سماعي استفهام بين قنيسة يا سما الله حكى قرطة بدن ضريش شيء بين قنيسة هي إن لبض بالله فتحيه قل لي ما أحسن سماع تعجب بين قنيسة يا عرق قرط بدنا ويا معنا حاسي هي إن نون كان الله فتحيه مسحنا ضمنا الله ضميه قل لي ما أحسن سماع كاسنوا بالنفي وعرق قرط بملي ويا ما أحسن سماع وعرق قرط بملي وحقروح وعرق ليه هي بمجد نحود وحي كاكلا إلى لنيسا معاني ذا حركضوا أي وضطوه النوع عاصر أبي الأسود الدؤل ينتيسي يساق قصة يسكو مرأي معاه قصة عجيب وارك صباح يقول كنت كذيب عليك أخوة وحولي عالي وأرهن لله يابايانا لغضي ويدا ورقوا عيسى هذا يدا ورقوا أضانا القرآن كي حديث كي عد فهمت اللي هي المايو تبا الحلقة ينبوي علي هو يابا محضلك ولن تيبوي في عيال كيني يوبت كيني سوكوري لغضي صحدا هيبا مقرانا يانو نوع عاسي وجي جبيني يانا بالكلاك ينبوي مركو علي مقلي أيو على فريسي نيجي أبي الأسود الدؤل لها مركز بابك تعجبك أو قرأ وهي نحوذ بابك سبب أوها إلا قراء وحن نقضي محي باب تعجب ونقضي وإذا أنت باب تعجب ويقرأ علي ابن أبي طالب باب تعجب وقرأ فبعد ذلك ذكر أن الكلمة تنقسم إلى 3 أقسام أنت يكدب نوح الشاقي إن الكلمة عربية وقيب سنتو صدح قيبات أنت يكدب نوح الشاقي سيدنا قرأنا إنه وحيوغي نواصبتها تنسب الاسم وترفع الخبر وحبوا هذا وصير شيخ مركز أنت وراء دي أدي أبي الأسود الدؤلي أيولي أبي الأسود ذو أنح نحو هذا طريقة إمك أن كوفري طريقة أقصد أبي الأسود أنح نحو هذا مقع عن نحوئه قولك علي بن أبي طالب باكوك على كسوقات أنح نحو هذا نحوه الكيبكي برتاسكي نحوها سيدي بالله قرأ أبي الأسود مالين بوح بسوقري حروف العطف كوسوقري حروف العطف كوسوقري أو إني أخوات كيد بقري إني أخوات كيد لكن نبو كتري مركو لكن كتري علي بن أبي طالب أيا أياري وحري لكن نم حاب قدري ويدي لكن نوي كشفتاي هذا نحوي سيدي بوكو بالله أبي الأسود وحو وحبري لما أرضي ويسقو دالي لبدي أرضي ويسقو دالي أيو وحبري لبدي أرضي ويسقو دالي نوحي وحبرين نكي لو أورنجري خليل بن أحمد عفوا نينكي لو رنجري أبي عمر الداني قاريقة هاي قرادة 7 هاي كجري نينكي بي وحبرين لبدي أرضينا أبي عمر الداني إساقنا وحسي بري خليل بن أحمد ونينكي دي نحوذا صدف في عنهمتي صدف في عن وغصب لغي ويان قواعد كيجي تاقي ويان تيرش دي جوتي خليل بن أحمد مركو بري خليل بن أحمد سيبا ويهي كسائية رقبة ديكا وحبرتي halkaasi naxwiyiintii qayb sameeyay laba madhab ka kala noqdeen labada madhab oo la yiraahdo madhab al-Kufi iyo madhab al-Basri labada madhab oo midna inta badan uu ictimaado Kisaa'i midna uu ictimaado Sibawayhi uu ictimaado labada madhab ay naxwadi oo kala kacay ilaa waqtina hada waa labada madhab waxa jira labada madhab saddexaya ayaa soo baxay oo waqtigii Abbaasiyiinta dawladda al-Abbaasiyya waqtigeedii ayaa la helay madhabkaas saddexaya مذهب كاسين مذهب التوسط ذا اللي رحلايو وحو انتصاب انت بدن اندلسيين لمنكي غير اندلس لمنكي دغ جرا ما اسبين المسلمين طاها وحضاره الاسلام halkii ay ka soo xana qaatay halka ayuu ka dibna madhab kaasii intisaabi jiray kolka اندلسيينtaasi waa madhab tawassul madhabkooda Abu Hayyan baa kamid ahaa Muhammad ibn Malik al-Alfiyada ayaa kamid ahaa rag badan ay ku jiraan ayaa noocaas oo kale iyagu runtii ahaa madhab lagu tilmaami karo mutawassil waayo darkaana way ka cabbi jireen halka nuxaada kale ama ninka basriyiintu inuu wax ka baran jiray ninka kuufiyiin wax ka baran jiray khilaafka u dhaxeeyana waxa ku saleysnaan jiray labadan madhab naxwada inta badan reemiga laga ururin jiray oo reemiga naxwada si fiican u yaqaanay waxay yiraahdeen naxwiyiintii markii naxwada cid laga baranayo la isku qabsaday basriyiintu waxay yiraahdeen ma ogolin meel magaalo ay naxwada laga barto magaalo oo dhan luqada lama weydiin jiray basriyiintu waxay ku cileeyeen
magaalo oo dhan markay diideen magaalo oo dhan magaalada ummadaha kale ayaa yimaada bay yiraahdeen safarkii yimaadaaba kelmad buu ugu yaraan kaaga tagaya kolku alaab ka iibsanayo kelmadu ku adeegsadun baa laga yaabaa inay dhegtaada kor ku soo noqnoqoto inaad iska qaadato haddii naxwadii haddii carabigii wax lagaa weydiiyo kelmad ummad kale ka soo jeeda ayaa laga yaabaa inaad tilmaanto inay kelmadani sax tahay waana khalad magaala ceebtaa iskale bay yidhahdeen misriyiin kuufiyiintii way diideen waxay yidhahdeen haddii magaalo wax laga qaadan waayo ma 40 nin ee miyiga aynu wax ka qaadanaynaa kuufiyiintii magaalana waanu ka qaadanaynaa bay yidhahdeen misriyiintu waxay yidhahdeen qabaa'ilka wax laga qaadanayo reebaadiyihii qabaa'ilka feedha xiga feedha ama koonaha xiga ee ummadaha kale deriska ay yihiin ummadaha kale af carabiga ku hadlaynin qabaa'ilka ay deriska yihiinna waxba laga qaadan maayo bay yidhahdeen waayo labada qabiil markay soo gaadhaan ama meel ay iskaga jiraan dee way isku taaturayaan oo kelmadii innaga waa af Soomaaligeena hadda dib ugu noqoto wada yaabaysa inta kelmadoodeena af Soomaali ba ahayn ee haddana af Soomaalinimo loo adeegsado beer qodashada xaggan galbeedka inaga gatay ilaa oramada gaadhsi imika waxa Soomaalideena beerta ay ku qotaan af Soomaali ma ma taqaana haddii dib u eegtid waa dareemaysaa inayna Soomaali ba ahayn waayo ka dibiga celinaya muxuu odhanaya dibiga soo noqon in liidaba ay Soomaaliga soo baahan kororo baa laga yaabaa inuu yiraahdo yaad garanaysaa horroox tahay af Soomaali ba ma xagana inooga timi alaabtii ku qodanayeen magacyay imika aan sheegi ba karay wax la waxay yihiin ayuu kala bixinaya kulka waa dareemaysaa qotida beera qodashadan iyo aydan la dhaqanayo iyo waxa sameeyay xagana inaga yimaadeen taas waxay keensanaysaa kelmadii loogu yeedhayay ama wax loogu waxaynayo dhaniba inay noqdaan kelmada kale kulka qabiil feedhiga afkiisa laguma kalsoono ay bisriyiintu istaageen halka waxa baxay 12 qabiil oo carbeed qabaa'ilkii carbeeda ayaa feedho laga helay waxay dhahdeen 12 ka waxa kama qaadanayno waa bisriyiintii kuufiyiintiina waxay soo taageen haddii 12 ka qabiil wax laga qaadan waayo 12 ka qabiil haddii wax laga qaadan waayo ayaa laga qaadanaya anagu waanu ka qaadanaynaa bay yidhahdeen waxaynu dareemi karnaa innagoo dariiqa eegayna markaste inay kuufiyiinta afkoogu u waasac yahay waayo qabaa'il kala duwan bay wax ka qaadanayaan markaste inay basriyiinta qabiilkoogu afkooguna u dayiq iyo cijiri yahay waayo ummad kooban bay wax ka qaateen laakiin ayaa u dhow xagga badbaadinta luqada ayaa u dhow basriyiinta u dhow waxay culimadu tilmaamaan waxay yidhaahdeen basriyiinta iyo kuufiyiinta tusaale kale ku kalan maynee waa kal Bukhari iyo Muslim bay yidhaahdeen kal Bukhari iyo Muslim way kala shuruud adag yihiin inaad og tahay mooyaane Bukhari iyo Muslim xagga xadiiska qaadashadiisa iyo warintiisa way kala shuruud adag yihiin ayaa shuruudadka Bukhari baa shuruudadka haddaba kuufiyiinta iyo basriyiintu qaadashadii luqada way kala shuruudadkaadeen oo waxa shuruudadkaaday basriyiintii baa shuruudadkaatay oo Bukhari oo kale noqdeen kuufiyiintiina shuruudoodii aad bay u dabacsanaatay oo Muslim oo kale ayay noqdeen waxay yidhaahdeen luqawiyiintu kolkay ka hadlayaan ama culimadu kolkay ka hadlayaan tusaale kale u garan mayno oon ahayn inaanu nidhaahno waa kal Bukhari iyo Muslim Bukhari iyo Muslim baanu tusaalahooga ka dhigi karnaa waad aragtaa baanu malaynaya waxay yidhaahdeen culimadu kolkay kala fadilayaan waxay yidhaahdeen luqada saxda ah cidda haysata oo nimankii basriyiinta ah kuufiyiintu mararka bidhkood sawaabka dee way qaadanayaan oo ninka kaa soo horjeedaa markasta uu qaldan yihiin lama yidhaahdo laakiin khata ooga ayaa aad u badan xataa waxay yidhaahdeen kuufiyiinta magacoogaba lama maqleene way baabi'i lahay way indiraasmi lahaayeen sababta magacooga halkaas soo gaadhsiisay kolba maamulka jira ay qacansaar la lahaan jireen maamulkaasaa kor sare soo qaadi jiray marba maamulka jira ay qacansaar la lahaayeen waxa la og yahay haddaad aragto niman xagga maamulka ku dhodhow ama maamulka difaacaya ama markasta xagga maamulka u leexanaya haddaad aragto waa niman xaqooda uxsikaya waayo waxa weeyaan wuxuu doonayaa inuu nimankan intuu garabsaal ka helo iyaga uu soo yar oo sare u soo qaado si uu kuwan kale oo kolkaa ula lolami karo ama loolan ula gali karo waxay tilmaamaan maalmaha kamida ayaa masalatu sanbuur masala la yidhaahdo jirta masalatu sanbuur ظننت أنكم سمعتم مسألة زنبور الزنبور وحانك مسألة زنبور ليلة واحد سوق سيبويه كسائي ويان عفوا سيبويه كسائي ما هين بافليا لكن وحويان علماء ذي أكابرتها مسألة زنبور وحيد أهل المهية بين قد واقنا مثل هو ويسمري وايه
maamulkii markaa jiray baa loo yeedhay waxay yidhahdeen maamulkii bay yidhahdeen dhexdhexaadiya waa lagu qoslo waxaa la yidhi idinkoo culimadii labada qaybooda ayaa idin dhexdhexaadin waxay ugu jawaabeen su-aashaas masaladaasi siba weyhi iyo kisaa'i nafsigooga yahay siba weyhi iyo kisaa'i waa laftarkooga weeyaan siba weyhi iyo kisaa'i oo idinkoo culimadii ummadda ah ayaa idin dhexdhexaadin baa lagu yidhi siba weyhi wuxuu ku jawaabay reebaadiyahana dhexdhexaadin ummaddaa reemiyiga anoogu yeedha hana dhexdhexaadiyaan kolkaa kisaa'i dee xagga dawladdu xasaar la lahaa siba weyhina lama lahayn reemiyigii baa loo yeedhay markii reemiyigii loo yeedhay ayaa la yidhi kelimatu zambuur ma huwabaa mise waa hiya waxay yidhahdeen intaanaan ka jawaabin kisaa'i hadalkiisa noo sheega waayo kisaa'i maamulku la socdaa iyaguna wakti kaste maamulkay raalli gelinayaan horta noo sheega bay yidhahdeen ninkaa odayga kisaa'iya hadalkiisa noo sheega bay yidhahdeen kisaa'i hadalkiisa noo sheega markay yidhaahdeen hadalkii kisaa'i noo sheega markay yidhaahdeen waxa dhacday waa la sheego waxa la yidhi kisaa'i noocaasu qaba oo masalada noocaas ugu dhawaaqay waxay yidhahdeen alxaqu maca alkisaa'i idan sidaa kisaa'i yidhi ayaa xaq a bay yidhahdeen siba weyhi ma xanaaqin wuxuu yidhi sow sida kisaa'i sax maaha na maqashiya oo ku hadla buu yidhi sida kisaa'i sidaa saxda abalada ku hadla carabtuna weligeed khalad lagama werinin waxay yidhahdeen intay qosleen bay yidhahdeen intay dhaqaaqeen malaha taariikhdu nagama xusto bay yidhahdeen kelmaddaa oo iska tegi halkii ummaddii meesha fadhiday waxay garatay kolkaa inuu siba weyhi xaqu uu miciisa ahaa laakiin ay raalligelin maamulka ay raalligelinayaan ay kelmadda yidhaahdeen alxaqu maca alkisaa'i kolkaa nimankan runtii waxa jiray waxay aad u waaweyn ama taariikho badan ay isla soo mareen basriyiinta iyo maxaanku idhaha kuufiyiinta ayaa jiray labadan magaalo basriya kuufa ayay ku kala dhaqnaayeen markii de dagaaladii iyo dhibaatooyinku ay dhaceen ayay bagdaad u wada guureen bagdaad baa noqotay magaalo qurux oo kolkaa ay ka wada taliyaan laba madhab oo iska soo horjeeda madhabulbasri iyo madhabulkuufi kolka haddaba qolana waxay ku dhegsan tuun basriyiinta maqaaladoodii qolana waxay ku dhegsan tuun kuufiyiinta maqaaladoodii qolana waa tawasudkiiyo labada kuwana waxbay ka qaadanayaan marka saxda kuwana waxbay ka qaadanayaan waa maxamed ibnu maalik alfiyada le haddaba kitaabkeennani sheekhanaynu bilaabanaynaa rajoogay ma basri ba mise waa kuufi weeyaan kitaabkani ninka qoray ajruumigani waa kuufi weeyaan maxamed ibnu maxamed asanhaaji nin kuufiya kuufiyulmadhaba weeyaan haddii aynu tilmaanno waxyaga ugu waaweyn ay ku kala duwan yihiin kuufiyiinta iyo basriyiintu runtii waa masaa'il aad u tiro badan oo welibana abwaab waaweyn qawaacid badan oo abwaab waaweyn ay ku dhisan tahay weeyaan laakiin waxaa ka mid a haddaan tusaale yar kuu soo qaado markaad jaa'a muxamedun icraabaysid muxamed markaad icraabaysid haddaad kuufi tahay waxaad odhanaysaa faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi calaamaad meesha keenaysaa wa calaamatu rafcihi haddaad basri tahayna maxaad odhanaysaa faacilun marfuucun wa rafcuhu dammatun oo calaamada ma ogolo basriyiintu qola wa rafcuhu dammatun daahira bay odhanayaan qolana wa calaamatu rafcihi bay odhanayaan mar kaste xataa haddaad darabtu caligaa haddaad icraab istidhaahid oo tidhaa wa calaamatu nasbihi fatxa haddaad tidhaa kuufi baa tahay haddaad tidhaa wa nasbuhu fatxatunna basri baa tahay kolkaa kitaabkeennani calaamaatulicraab wax la yidhahdo ciiddaa ka badan baabka ugu weyn baa baabka kitaabkani qoray baabka ugu weyn calaamaatulicraab baa la yidhahda waaba calaamu keenay ma arkaysa inay masaladii kuufiga tahay waa masaladii kuufiyiinta weeyaan laakiin nimankii muxaqiqiinta la odhan jiray madhabkan aad bay u radiyeen ee calaamada sheegaya madhabkaa wa rafcuhu iyo wa nasbuhu iyo madhabkaa basriyiinta ayay qaateen muxaqiqiintu saasay ku leeyihin qaatila kitaabkan yar qawaacidkiisu kitaabkan yar waa kitaab kooban aad u kooban ninka qorayna runtii nin iska mutawaadica buu ahaa aad nin mutawaadica buu ahaa tawaadiciisu heerkuu gaadhsiiyey waaba heerka xataa culimada badhkood ay magaciisiiba garan waayeen waayo ninku camal khayra markuu sameeyo uu ilaahay dartiina uga jeedo ma aha inuu qabiilkiisii iyo waddankiisii iyo halkiisii iyo abtirsiintiisii oo dhan inuu meesha ku dhammeeyo maaha camal khayra soo ilaahay dartii maadan samaynin dee kitaabka qortayayuna riya kaa noqonin iskaga tag saasay aad ugu dhaqmi jireen kolka kitaabku ka soo cod badan yahay sirta ku jirtaa waxa weeye shakhsiga lahaa ayuu ilaahay camalkiisii qabuul ka dhigay waayo khayr buu dee ku leeyahay nin kastoo wax ka faa'iidaystaba waa camalkiisii soo camalkiisii maaha waa camalkiisii oo ilaa qiyaamada u soconaya nin kastoo faa'iidaysanayaba oo wax ka faa'iidaystaba kolka camalkiisii oo maqbuula weeyaan waxaa jira maxamed ibnu maxamed asanhaaji waxa way kitaabku qoray waa 6 waraaqood iyo hal bug taas ayaa keentay bay yiraahdeen culimadu 6 waraaqood iyo halka bug ayaa keenay bay yiraahdeen
qawaacid aad u badan inuu ku soo ururiyo taasina waxay keensatay inay ummadu jeclaato kiyon loo eegaynin madhabka uu ictimaadayo laakiin si la eegayo cilmiga uu sheegayo madhabka uu ictimaadayo lama eegayo cilmigiisu bal eegayo kitaabkan ajruumigii waa nooca kitaabkan Soomaalidu ay ku gabagabayso maxaan ku idhaa naxwadeeda alfiyatu ibn malik baa leeyahay waa kun bayd waa kun iyo laba bayd weeyaan kitaabkaasina ninka qoray waa basriyul madhab weeyaan inkastay ragga barkood meelaha iskaga sheegtaan inuu meelaha barkood ku fiyahay waa nin basriyul madhab weeyaan kolkaa eeg Soomaalidu ma aha ummad si gaar ah wax u qaadata oo madhab gaar ah wax ka qaadata basriyiinu kitaabtooda ma bartaan kuufiyiinuna kitaabtooda ma bartaan kitaabtii Soomaalidu ay urursatay way isku dhex jir weeyaan way isku dhex jir kuwana waxay ka qaataan kuwana waxay ka qaataan oo markaa miyaan la oran karaynin Soomaalidu waa sidii madhabul mutawassit iyo Andalus ka jiray oo kale meel madhabkii oo kale lagu tilmaami maayo oo sababta lagu tilmaamaynin waxa weeye wali lama aragnin Soomaaliyeed oo intuu soo caan baxay intuu kitaab ka qoray bayaamiyay afkaarta uu ka leeyahay inay xagga basriyiinta u leexsan tahay iyo inay xagga kuufiyiinta u leexsan tahay haddii laakiin taa la arki lahaa waa lagu dari lahaa qoladaas lagu dari lahaa laakiin Soomaalidu ibtidaai bay iskaga badan tahay kooga sheekha iyo kooga ardaygiiba ibtidaai bay iskaga badan yihiin waxa sababay waa nin hore kitaab uu qoray un bala doonayaa in la adeesto kitaab hore la sheego ma la taxliilinaya laakiin ma arkaysid nin isagu intuu kitaab qoro hadii Ethiopiyinta masaakiinta Ethiopia agteena waynu dareemaynaa baan u malaynaya kitaab ay qoreen aad u waaweyn oo garanaysid naxwaha waxay ka qoreen usulka waxay ka qoreen mustalaha waxay ka qoreen xadiiskana deemika waxay wadaanba nasaiga kitaabka ugu weyn caalamka kitaabka u soo baxay kitaabka ugu weyn 3 mujallad ayimka ka wada 3 mujallad suudiga lagu daabo kolka waxa dareemi karaysaa Soomaalida laakiin wali lama arag nin Soomaali oo hortaanu indhamaan saarin nin Soomaali oo intuu wax isku dayo fadhiiri waxba soo qoraya waxay dooni baa noqdo aad u kooban yahay runtii haddaba Soomaalida madhabkayga ka soo noqoto kitaabkii aynu qaadanayna isku dhex jirka weeyaan maanta waxaan jeclaysanayay inayna waxba cashir ka dhiganin waayo waxa weeyaan wax laga yaabaa ardayduna way iska ka maqan tahay si fiican runtii anagu uma naan soo ilaamin uma naan soo ogay taasoo keenaysa kolka inaynu maanta dambe insha Allah kitaabka bilaabano laakiin sababtii naxwada loo bilaabay bayna maanta soo sheegay su'aalaadkana waa soo diyaar garoobay rag iyo dumarba xagga makaanka laftirkiisa wayna ka wada hadlaynaa